بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada markaan ku leeyahay xasan sheekh waa qof aan dhegtiisa iyo afkiisaba aysan ismaqal waa tan oo kale shalay ayuu shacabka Soomaaliyeed la hadlay wuxuu sheegay in ciidamo ay dawladdiisu ka qoratay deegaanada Puntland muddo dheer ay ciidamadaasi mushaar ay siinayeen isla markaana wasaaradda gaashaandhigga ay ka warhaysay waxa sheegay xasan sheekh waxa sheegay ra'iisul wasaare xamza isla shalay isla hadalkii xasan sheekh maxamuud waxa ku jiray arrin kale oo ka yaabanaysa wuxuu madaxweyne xasan sheekh bulshada Soomaaliyeed la wadaagay in aynan jirin wax xiriir ah oo maamulka Puntland iyo dawladda dhexe u dhaxeeya taas sababteedana uu leeyahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa su'aala ciidan baa mushaar siinaa oo Puntland noo jooga iyo ma jiro wax xiriir oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Puntland wuxuu waliba cadeynayaa madaxweyne xasan sheekh inaysan jirin hay'adaha dawladda oo dhan wax xiriir oo kala dhaxeeya iyo hawl hay'adaha dawladdu ay ka wadaan gudaha Puntland waxaan rabaa markaa bal in aynu iswaafajino ciidan baa noo jooga mushaaraan siinaa iyo xiriir lama lihin Puntland madaxweyne Dani ayaana sababay waa arrimaha aan la yaabay oo aan doonayo bal qodobka koowaad in aan ummadda Soomaaliyeed ugu bayaaniyo xildhibaan sanyare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan doorashadiisuna ay tahay Puntland ayaa wuxuu ka jawaabay weerarkii afka ahaa uu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku qaaday maamulka Puntland gaar ahaan Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu iftiimiyey arrin muhiim u ah bulshada loona baahnaa shacabka Soomaaliyeedna in lagu marqaatiyeeyo ra'iisul wasaaruhuna uu dhageysto aqbalo garnaqsiga xildhibaan sanyare oo salka ku haya hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxa uu matalaa guud ahaan reerka la yiraahdo Daarood gaar ahaan waxa ay deegaan doorashadiisu tahay Jubbaland waxaan ognahay Jubbaland inay tahay maamul goboleed asalkeedii hore Puntland ay cagaha u dhigtay oo ay dhistay garab iyo gaashaanna u ahayd ma ogahay ra'iisul wasaare Xamza in halka uu siyaasadda ka soo galay ay tahay halkii ay Puntland dhistay soo looma baahnayn inuu cizeeyo sharfo karaameeyo mar haddii isaga iyo maamulka uu ka soo jeedaba Puntland ay horay u yagaleeshay ma ogahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dawladda noo dhisan uu maanta ra'iisul wasaare ka yahay in halka lagu yagleelay ay Puntland tahay ma loo sheegay in dastuurka lagu dhaqmayo la qorsheynayo in lagu dhaqmo isaga lagu doortay isaga lagu ansixiyey xukuumaddiisu ay ku shaqaynaysay in dastuurkaasi lagu qoray magaalada Garowe waxaan iftimi doonaa garnaqsiga muuqda siyaasadda Puntland iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Puntland waxay fariin ahaan shacabka u dirayaan waa shacabka Puntland in aanan Puntland lagu halayn madaxweyne Dani oo kaliya loona baahan yahay in la iska kaashado difaaca si uunan maamulkaasi 28 sano jirsaday uunan u burburin waajib ma tahay duulaankan cad ee madaxtooyada Villa Soomaaliya in laga difaaco deegaanada Puntland tan kale wax faa'iido ah oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu leeyahay oo dan u ah shacabka maamulka ma jiraan bal arrimahaasna waanu isla eegi doonaa qodobada kale oo arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka quseeya ayaan kula wadaagi doonaa ku soo dhaw mar kale YouTube-ka haddii aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe iyo saarto haddaadan ku cusbayn horey noola joogtay mahadsanid soo dhawaada madaxweynaha muddo dhaafka ku jooga Villa Soomaaliya wuxuu qorsheynayaa doorasho booba wuxuu ka hirgeliyey magaalada Baydhabo waxa uu dhisay maamul la yiri doorasho qof iyo codub ku yimid laakiin ay muuqato in uu isagu si gaar ah u xushay golo baarlamaan gudoomiye baarlamaan oo maamul goboleed iyo madaxweyne ahna gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe hadda wuxuu qorsheynayaa inta lagu guda jiro bishan ilaa iyo dhowr iyo 20keeda inuu soo dhameystiro doorashadii Galmudug bisha Julayna uu ka soo gudbo Galmudug isla gabagabada bisha Julayna loo guda galo doorashada Hirshabeelle si August bilowgeedaba labada maamul ee u haray uu doorasho ahaan soo boobo isla markaana wixii ka dambeeyo August uu yiraahdo xildhibaanadii golaha shacabka ayaa loo codeynaya
ogaada doorashada madaxweyne xasan sheekh uu doonayo waa tan baydhabo ka dhacday ayada ayaa ka dhacaysa dhuusamareeb ayada ayaa ka dhacaysa jowhar ayada ayaana la rabaa dowladda federaalka in lagu doorto si kastoy u muuqataba waa doorashada uu xasan sheekh doonayo hadday wanaagsan tahay iyo hadday xun tahayba doorashada magaceed ma waxaan kula wadaagaa magaca meediyaha loogu talagalay mise magaca gaarka ah magaca gaarka ah dadka dooran waa diyaarsan yihiin golaha shacabka horaa loo diyaariyey waa dad diyaarsan oo lagu leeyahay qof iyo cod baa lagu doortay hirshabeelle waxaa nabadoon ka ah madaxweyne xasan sheekh galmudug waxaa nabadoon ka ah madaxweyne xasan sheekh hirshabeelle koonfur galbeed isagaa nabadoon ka ah maamulka somaliland xildhibaanada federaalka ku matalana isaga ayaa nabadoon ka ah dhammaanba isagaa soo qoraya shacabka sawirro ayaa laga qaadaya safaf dhaadheeray gelayaan meediyaha la tusayaa beesha caalamka la leeyahay soomaaliya way ka gudubtay nidaamkii awood qaybsiga qabiil waxayna u gudubtay doorasho qof iyo coda natiijada ugu dambaysana waa madaxweyne xasan sheekh oo mar saddexaad soomaaliya madaxweyne ka noqon ama tartan doorasho gala ama ha gelinina kolley madaxweynaha soo bixi doona waa xasan sheekh waa nooca doorasho ee jabuuti ka dhacda waana arrin aan sii ognahay inta ay dhicin doorashooyinka federaalka iyo midda maamul goboleedyada maxaa la gudboon shacabka in runta la isku sheego haddaanu codka siyaasadda iyo dadka ku haysta kursiga madaxweyne xasan sheekh aan meel iska dhigno oo aan dhahno wuxuu shariif sheekh axmed xasan sheekh ku haysto isagay gooni u tahay waxba nagama gelin hadduu farmaajo kursi doonayo isagay gooni u tahay waxba nagama gelin bal shacab ahaan iyo qaran ahaan ma u wanaagsan yahay madaxweyne xasan sheekh qarankan soomaaliyeed dowladnimadu ma u wanaagsan yahay shacabka soomaaliyeedna ma u wanaagsan yahay haddii intaas ay jawaabtu tahay haa waxba nagama gelin siyaasiyiinta ayagay khusaysaa siday doorashooyinkooda u qabsan lahaayeen laakiin madaxweyne xasan sheekh qaranka ma u roo yahay maanta waxaan maraynaa heer qarankii soomaaliyeed iyo midnimadiisii khatar ku jirto lana sii kala togay madaxda dalka maamulaysana kuma baraarugsanaa diyaarna uma aha in arrintan ay wax ka qabtaan maraykanka ugu dambeeyey go'aan cad ayuu ka soo saaray arrimaha soomaaliya wuxuuna sheegay inuu dhaqaale dambe ku bixinayn xaaladda soomaaliya amniga iyo kabka dhaqaalaha ee dowladdu ay ku shaqaynaysay waa quus iyo natiijo xumo waana arrin dharbaaxa ku ah qarannimada soomaaliyeed waana meesha aynu micno ahaan ka ogaan karno xasan sheekh maxamed dowladnimada meesha uu dhigay waxaad moodaa in dalalkii dan ka lahaa ee ku rajo weynaa 4 sano ka hor in soomaaliya ay ka rajo beeleen 4 sano kadib shacabka soomaaliyeed waa kuwa silicsan qaarna la handadayo qaarna la dilayo qaarna la boobayo midna dhul baa laga boobayaa midna muqdisho lagu weerarayaa midna xabsiga ayaa loo taxabaya waa nolosha shacabka dhabta ah oo ay maanta ku nool yihiin marka hadduu madaxweynihii dowladnimada u wanaagsanayn midnimada u wanaagsanayn shacabkana aan u wanaagsanayn miyaynan ahayn dhibaatada maanta madaxtooyada taalla mid qusaysa qof kasta oo muwaadina oo soomaali ah qabiilkaa doonta ka soo jeed ma jira qabiil uunan dhibaateyn madaxweyne xasan sheekh hawiya daaro degel iyo melefle sii kala qaad hiraab habargidiri abgaal sii kala qaad wacaysle cid aanan xasan sheekh cadaalad darro ka sheeganayn maanta ma jirtaa waxaa maanta xabsiga ku jirta gabar u xiran madaxweyne dhibkaasaa i haysta gabadhaadaan la mid ahay xabsigaa la dhigay maxaa looga faa'iidaysanayaa maxaa la diidan yahay in maanta ay hooyadaa ka hor hadasho shacabka soomaaliyeed runtana sheegto waa madaxweynihii noo sheekayn jiray waktigii farmaajo isagoona lahaa waa xasan sheekh maxamuude ikraan tahliil baan u hadlayaa gabar soomaaliyeed in la waayo in lagu xadgudbo wax la aqbali kara ma aha maantana sacdiye bajaaja u xiran wallahi dadkii la qaldaan anigu ka mid ahaa dadkii uu qalday ayaan ka mid ahaa dadka ay siyaasiyiintan damujidiid ay qaldeen ayaan anigu lambar 1 ka ahaa laakiin alxamdulilah xilli qabashadu ay fiicnayd baan isqabtay ummadda soomaaliyeedna waxaan mar walba u soo gudbiyaa maaha dulmi iyo mucaarad wixii jira anigu mucaarad maahi wixii jira ayaan ummadda la wadaagaa mucaaradka lagu sheegayo waa qof kursi ka raadinaya madaxweyne xasan sheekh wasiirnimaan ka rabin xildhibaannimaan ka raadinayn madaxweynenimaan ka raadinayn ra'iisul wasaarenimaan ka raadinayn ummadda soomaaliyeed baan tusayaa halkay arrintu ka qaldan tahay cidna uma abba yeelo qabiil qof ii dhow qof iga fog qof soomaaliyeed si guud cid walba oo maanta
gardaradaan caddeeya ciddii laga gardarayahayna waa la sabtaa ummadda soomaaliyeed u sheega dulmigan heerka u gaarsiiya waaya khudbad ayuu shalay jeediyey xasan sheekh guraanadka maalmaha xorriyadda laba af ayuu ku kala hadlay waana arrimaha aan la yaabay waay madaxweyne xasan sheekh wuxuu noo sheegay muddo in ciidamo ay dowladdu mushaar siinaysay ay ku sugan yihiin gudaha puntland taa oo micnaheedu yahay wasaaradda gaashaandhigga iyo deegaanadaba in xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyey xiriirkaasna uu sii socon doono lana sii kordhi doono ciidamada laga qoranayo gudaha puntland halkaa maxaa ka cad annagu gaashaandhigga wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya ciidamadaas xiriir baa kala dhexeeya lacag baa la siiyaa mushaar baa u dhaca waxaasoo dhan afka dowladdan ka haynaa gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isla khudbaddii xasan sheekh uu noogu sheegay in ciidamada puntland jooga ay mushaar siiyaan ayuu haddana isla khudbaddii wuxuu ku sheegayaa in uunan jirin wax xiriira oo hay-adaha dowladda ay puntland la leeyihiin iswaafaji wasaaradda gaashaandhigga ciidan halkaa ka qoratay oo dowladda ka war hayso oo mushaaraan siinaa iyo dowladdu xiriir puntland lama laha dani ayaana diiday hay-ad dowladda ka tirsanoo xiriir la leh ma jiro macnaha waalan mascadana laga heesaya war munaafaqnimada madaxweyne xasan sheekh arag sidee isku waafaqaysaa ciidamo ayaan halkaa ku daryeelnaa oo xoogga dalka ka tirsan taliyaan u magacaabay jimcaale ayaa la yidhaahdaa wuxuu ka howlgeli doonaa garowe ciidamadu ilaa boosaasay joogaan iyo dowladdeeda wax xiriira oo ay la leedahay puntland ma jirto arrintaasna siciidani ayaa diiday weliba waan loo sheegayaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu leeyahay wax hay-ad ah oo dowladda ka tirsan oo puntland xiriir uu kala dhexeeyo ma jiro maxaa loo magacaabay jimcaale jaamac takar maxaa naloo lahaa guddada 54 ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo garowe jooga ilaan dowladdu waxay noo sheegaysaa inaysan xiriir la lahayn maamulka puntland taa sababteeduna uu leeyahay madaxweyne siciid cabdulaahi dani kaale iswaafaji marka hadalka aan ku shidi doono xasan sheekh maxamuud oo noo sharaxaya in xiriirkii dowladda uu diiday madaxweyne siciid cabdulaahi dani dowladdiisuna aynan haba yaraatay wax xiriira puntland ay la lahayn ayaan kuu shidayaaye hadalkiisii horena waad xasuusataaye bal intaad iswaafajiso waxaad ii sheegtaa maxaynu xasan sheekh ka aaminaa munaafaqnimada heerkaan la egna maxay tahay waxaan rabaa iyaguna waa og yihiin annaguna waa ognahay allana waa og yahay in hoggaanka meeshaasi joogaahay oo maamulkaas deegaankaas ka jira ee dowladda ah ee dowlad goboleedka ah uu ka gooyey soomaaliya dhinac walba afka marka laga reebo dalka soomaaliya aan ka midnahay jamhuuriyaddan ka midnahay in la yidhaah maanta la joogaahay maamulka puntland iyo dowladda federaalka wax ka dhexeeya ma jiraan wax walba waa la jaray waa la joojiyey communication kama dhexeeyo wada shaqayn kama dhexayso wasaaraduhu ma wada shaqeeyaan halka dalka intiisa kaloo dhan wasaaradaha joogaahay ay wada shaqeeyaan waa isla meeshii waa isla goobtii uu ka lahaa ciidamo ayaan mushaar siinaa isaga iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayuu haddana leeyahay xiriir hay-adaha dowladda kala dhexeeya puntland ma jiro bal waalida intaa la eg arag waa taariikh weligay tanoo kale ii dhinayd waa taariikh weli tanoo kale wallahi waa ii dhinayd isma lahayn xitaa madaxweynuhu heerkaas ayuu daqiiqado gudahood laba af ku kala hadlayaa dowladdu way daryeelaysaa way qiimeynaysaa muwaadin kastoo soomaaliyeed askari kastoo soomaaliyeed dhulka soomaaliya jooga hadalkaas hadalka macaan ma jiro laakiin maxay tahay ciidamada keliya puntland laga daryeelayo oo aan laga daryeelayn deegaanada kale war maxay kaga duwan yihiin ciidamada puntland jooga kuwa jooga maamulada dalka ka jira oo dhan in ka yar 200 kilomitir ciidamo ayaa jooga markaynu garowe ka xisaabino ciidamadaas lama daryeelo kuwa galmudug lama daryeelo koonfur galbeed iyo jubbaland iyo hirshabeellena warkeed badaa haddana waxaa lagu leeyahay daryeel gaara ayay naga mudan yihiin timir baa lafaa ku jirtee ujeed kale leeyahay way noo muuqataa xaqiiq dhul nabada ayaa duulaan lagu yahay waxaa loo socda siciidani maaha ee waa jiritaanka maamulka halkaa ka jira waxaa la rabaa in laga dhigo sida galmudug qofkii la rabana la geeyo halkaas waxaa la rabaa in aadan madoobo kale la geeyo si ay ula mid noqoto puntland maamulada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed